Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada cashirkeenii Deutsch im Alltag ee buugga. Maanta waa cashirkii saddexaad aan dhiganayno. Wuxuuna ku saabsan yahay Vergleichung ama isbarbardhigista. Aan ku bilowno tusaalahan. Die Bluse ist zu groß. Shamiisku wuu weyn yahay. Die Hose ist zu eng. Surwaalku waa cidhiidhi. Die Jacke ist zu kurz. Jaakeetku wuu gaaban yahay. Der Pullover ist zu teuer. Funaanadu waa qaali. Sidaad arkaysiin marka aad wax sheegaysid to iyaad gelini sida tusaalahan oo kale aan hadda soo sheegnay. Waa marka aad keligii tilmaamaysid eed weli waxba aanad garab dhigin ama aad shay kale ku darin. Kelmadihii aan soo aragnay ee ahaa Die Bluse ist zu groß. Waxa hadda aad halkan ka arkaysiin cagsigeegii oo lagu odhanayo nimm die hier, die ist kleiner. Qaada kan, kanaa ka yar kani aad hadda haysatid. Waxaana ugu dambeeya er. Nimm die hier, die ist weiter. Kan qaado, kan ayaa ka ballaaran. Nimm die hier, die ist länger. Qaada kan, kan ayaa ka dheer. Nimm den hier, der ist billiger. Kan qaado, kanaa ka raqiisane. Marka aad af Soomaali ku leedahay uu ka weyn yahay, uu ka yar yahay, halka aad aad ka isticmaalisid af Soomaali. Waxaad af Jarmalka kelmadda ugu dambaysiini er. Sida tusaalahan aad hadda arkaysid. Isbarbardhigistu waa adigoo laba shay oo isku eg aad kala dooranaysid laakiin dhankaaga isku mid ah iyo laba shay oo aad mid ka fadilaysid midka kale ama aad ka jeceshahay. Waxa markaa aad isticmaali labada shay marka ay isku kaa mid yihiin genau so. Marka aad leedahay kanaan ka jeclahay kan kalena waxaad u isticmaali als. Sida tusaalahan oo kale. Das Hemd ist genau so schön wie die Hose. Shamiisku aad ayuu u qurux badan yahay sida surwaalka. Tusaalaha labaad waxaa weeye das Hemd ist schöner als die Hose. Shamiiska ayaa ka qurux badan surwaalka. Halkaad ka odhan lahayd das Hemd ist schön, die Hose ist schön. Maadaama labada shayba ay qurux badan yihiin waxaad isticmaali ist oo ah verbigii sein iyo genau so schön. Markaas tagsigan saad ku arkaysiin waxaad isku xidhaysaa labadii shay ee quruxda badnaa mid ayaad soo horreysiisan sida das Hemd ist genau so schön wie die Hose. Midna halka ugu dambeysaad marsanaysaa. Marka aad labada shay mid aad fadilaysid ama aad ka jeceshahay ka kale waxaad u isticmaali als. Halkii schön ahaydna waxa aad ka dhigi schöner oo ugu dambeynta er ayaad ku dari sida tusaalaha aad ka arkaysid. Ich trage Röcke genauso gern wie die Hosen. Waxaan u xidhaa jiibka sida aan u jeclahay surwaalka. Yacni halkaad ka odhan lahayd jiibka waan jeclahay surwaalkana waan jeclahay sidii aan ku soo aragnay yaad u isticmaali. Ich trage lieber Jeans als Röcke. Xidhashada jeaniska ayaan ka jeclahay xidhashada jiibabka. Tani waxa aad jeceshahay mid labadii shay mid baad aad u jeceshahay markaa waxaad isticmaali als. Markaad laba shay oo wada qaali aad isbarbar dhigaysid saan hore u soo aragno waxaad isticmaali genau so. Tusaalahan das Hemd
kostet genauso viel wie die Hose. Shamiiskan wuxuu xoog qaali u yahay sida surwaalka. Markaas halkaad ku odhan lahayd shamiisku waa qaali ama das Hemd kostet viel iyo die Hose kostet viel. Waxa aad soo qaadani genauso si aad iskugu xidho labadii shay ee wada qaaliga ahaa. Marka aad labada shay mid uu xoog qaali u yahay midna uu iska yara rakhiis yahay waxaad u isticmaali als. Sida tusaalahan das Hemd kostet mehr als die Hose. Shamiiskan ayaa xoog uga qaalisan surwaalka. Imikana waa aufgaabihii ama layliskii ku jiray cashirka buugga. Waxa lagu soo dhigay halkan Hemd shamiis oo qiimihiisu yahay €25, Pullover funaanad qiimihiisu isagna yahay €25, Teuer qaaligii iyo Sein. Waxay ka dhigan tahay markaas labadan shay waa isku qiime. Waxa lagaaga baahan yahay inaad sidaan hore u soo aragnay aad isticmaashid genauso wie teuer. Talabaadi waxaa weeyaan inaad yadana isticmaashid als. Billiger als. Schuhe kostet €80. Kabuhu waa 80. Stiefel waa kuwan ilaa xooga ku jooga iyagana waa 120. Billig sein. Sidoo kale iyadna sidii kuwii hore unbaad u isticmaali. Hemd shamiiska Krawatte Krawaatkii loo xiranayay xaragada schön sein. Quruxdii isku day fiidiyooga inaad joojisatid oo aad keliya ka shaqaysatid page-kan ama fiidiyooga intuunan dhammaan waxaad ka arki kartaa xalkii oo aan ka shaqaynay ama aan ka shaqeeyay. Kuma jiro xalka buugga. Haddaad buugga haysatid kama helaysid xalka laakiin xalkii oo dhammaystiran ayaad ku arki kartaa fiidiyooga dhammaadkiisa. Cashirkeennii maanta intaasuu ku dhan yahay insha Allah. Inoo iyo fiidiyooga dambe waxaan igaga tegayaa saas iyo nabadgelyo. Fadlan haddaad ku cusub tahay naga mid noqo si aynu kuu dhaafin fiidiyooyada cusubna. Jaraska active ka dhigo.